doonaa midabkan cagaarka ah. Guji og si aad u xirto sanduuqyadan wadahadalka iyo rasaasta la habeeyey waxay ka soo muuqan doonaan dukumentiga. Hadda waxaa jira nooc saddexaad oo liis ah oo aynaan weli ka hadlin oo loo yaqaan liiska heerarka kala duwan. Liis heerar badan asal ahaan waa dulmar, qaybta ugu weyn ee iyaga ku saabsanna waa in aad si fudud ugu rogi karto liis kasta oo rasaas ah ama liis lambaraysan oo aad geli karto liis heerar badan ah. Tusaale ahaan, hoosta wararka iyo dhacdooyinka waxaan jeclaan lahaa in aan ku daro qaar warar gaar ah. Riix gelida si aad u abuurto shay cusub kadibna taabo Tab on your keyboard-ka. Kadib waxaad ku qori kartaa shay kasta adigoo riixaya Enter kadib mid kasta. Haddii aad rabto inaad kordhiso heerka shayga, kaliya ku dhufo bilowga laynka kadibna taabo furaha Tab hal ama dhowr jeer, wuxuuna u dhaqaaqi doonaa midig. Haddii aad rabto in aad hoos u dhigto heerka shayga, hay Shift-key oo tabo Tab oo waxa ay u dhaqaaqi doontaa bidix. Sida liis kasta, waxaad bedeli kartaa qaabka rasaasta ama lambarka. Haddii aad gujiso shay liis oo dooro xabad kale, waa bedeli doona dhammaan walxaha heerkaas ah. Waxa kale oo aad dib u habayn kartaa liiska oo dhan adiga oo gujinaya amarka liiska heerka multil kadibna dooro mid ka mid ah qaababka la dhisay. Sida aad arki karto, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo aad u qaabayn karto liisaskaada, markaa qaado waqti aad ku hagaajiso si ay ugu habboonaadaan qaabka dukumentigaaga. Taasi waa sababta oo ah Word wuxuu ku daraa kala dheeraynta cutubka si caadi ah. Haddii aad rabto, waad ka saari kartaa ama bedeli kartaa tirada booska. Hubi in qoraalka la doortay, dabadeed dhagsii amarka laynka iyo baragrab kala dheeraynta, kadibna liiska hoose waxaa jira laba ikhtiyaar: ku dar meel bannaan ka hor baragrab iyo ka saar space after baragrab. Ikhtiyaaradani way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xidhan kala fogaanshaha cutubka hadda jira. Si la mid ah kala dheeraynta laynka, haddii aad rabto inaad hagaajiso kala dheeraynta cutubka, aad line kala dheeraynta options, kadibna waxaad ku qori kartaa qiimaha aad rabto booska ka hor iyo kadib. Waxaan u malaynayaa inaan isku dayi doono hal eber dhibcood cutub kasta kadib. Waxaan filayaa in tani ay u muuqato mid aad u wanaagsan, laakiin haddii aadan jeclayn qaabka u kala dheeraynta xariiqda ama sadarka, waad dib u noqon kartaa oo hagaajin kartaa ilaa dukumentigu u ekaado sida aad rabto.